السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعانا وناكسن داوديال كسو دوادا channelka MMS for Somalia oo ka daawatan sheekooyin waaqici iyo weli mawaadiic cajiiba hata jeceshay fiidiyoyada noocan kale ha iloobina subscribe saarta channelka gambaleelkana aad furato si ay kugu yimaadaan fiidiyoyada markaan soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya daawada. maanta waxaan ka hadlanaa mowduuc yar ka duwan mawaadiicdii hore. maanta waxaan ka hadlanaa meelaha ugu qabow caalamka. anigoo fiidiyo daawanaya waxaan arkay ay meel ku qalalay oo yani baraf ahaan u istaagay. markaan arkay aygaas sida uu qalalay waxaa igu timid fikrad ah koon hada video ka samaysan meelaha ugu qabow caalamka. waxa laga yaabaa dadka qaar inaanay garanay siday qabowgeedu intuu gaadhay siisan yahay waliba noocay yihiin meelahaasi. marka videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay meelaha ugu qabow caalamka. daawasho wacan videoga maanta. meesha koowaad waxaa la yiraahdaa Prospect waxaana ku taala Alaska. meesha waxaa lagu yaqaanaa inay tahay meelaha ugu qabow caalamka. tusaale ahaan 1970kii waxa uu gaadhay darajada xaraarada meeshaasi -26. sidoo kale meesha waxaa lagu yaqaanaa inay tahay meelaha laga soo saaro shidaalka. haddaba dadkii shidaalka markay soo saarayeen shidaalka waxay ogaadeen inuu shidaalku fadhiisanayo. dad waxay keeneen fikrad ah inay u sameeyaan tuumbooyinka meeshaasi shidaalka laga soo qaaday inay ku sameeyaan waxyaabaha u ogolaan inuu qabowgu soo dhex galo si aanu shidaalku fadhiisan. markii hore shidaalku fadhiisay laakiin markii dambe waa laga taxadiro waxa loo sameeyay fikradaas ah inaanu qabowgu soo dhex galin tuumbooyinka shidaalkaasi laga soo qaado meeshaasi. meeshana waxaa lagu tiriyaa inay tahay meelaha ugu qabow caalamka. meesha xigta waxaa la yiraahdaa August waxaana ku taala Ruushka waana mid kamid ah magaalooyinka Jamhuuriyadda Yaquudiya. meeshan waxaa la sheegay xilliga jilaalka markay gaadho waxa in barafka iyo qabowga u dhaxeeya -30 ilaa -50 iyadoo haddana qabowga intaas leeg jira haddana dadku waxay ku nool yihiin nolol dabiici ah iyadoo la sheegay inay tagaan shaqooyinkooda iskuuladooda iyagoo xidhan food caadi ah. sidoo kale intaas waxaa kasii daray dadku sameeyaan caado u soo jiranayd taasoo markuu barafku wabigu markuu fadhiisto ay ku meedhaan biyaha qabow ee wabiga. sidoo kale waxay sameeyaan ciyaarta orodka ee lagu jimicsiiyo jirka iyo waxyaabo kale oo caadi dabiici inooga ayaa iyaga barafkaasi dhexdiisa ay ku dhex sameeyaan dabiici ah. dadkaas caadi ma aha. waxaa daba la sheegaa in barafku ugu badnaa ama qabowga ugu badnaa ay gaadhay meeshani 1930kii oo yahay -70. dowladda Kazakhstan waxay ka mid tahay dowladaha ugu qabow caalamka. waxa laga maqashay dowladda Kazakhstan waxay ka mid tahay qabiilada San wadamada ugu dhamaada magacooda San ay ka mid tahay sida Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan kuwaas ka mid tahay. haddaba meesha waxaa la sheegaa inuu barafkeeda ama qabowgu gaadho -56 ilaa -60. oo mid kamid ah fiidiyoyada ugu la yaabka badnaan oo aan YouTube-ka ku arkaya waxaa laga soo duubay meeshaas sidoo bisad bakayle ay dhammaantood ay ku qalafeen kuna baktiyeen meeshaasi barafka ah dhexdiisa. daawasho wacan. Знаете, почему я не люблю Астану? Капец, даже кошка не успела в туалет сходить. Вот какие у нас в Астане суровые морозы, на хату собака залезает. Офигеть, вы что, вытащить надо? Замерз, да? Бля, он конкретно туда попал, смотри. Ну, не говори. Опа. Ёпта. Бля, здоровый заяц, а? Бля. Жалко, ёпта. Зайцы косят траву. tuulada Oymyakon ee Ruusiya. tuuladan waa tuulo yar oo ku taala Siberia. tuuladani waxay ka mid tahay meesha saddexaad ee wareegga dhimashada Saalin. haddaba tuuladani waa tuulo aad u qabow. tuuladan haddaba waxay ku fiican tahay ama lagu yaqaanaa caalamku ku yaqaanaan shidaalka, waxay ku yaqaanaan qalinka, dahabka, saliidda iyo waliba diamond-ta iyadoo la sheegay heer ay gaadhay tuulada in laga helo 23% diamond ugu qaalisan caalamka. laakiin tuuladan waxay leedahay hal wax oo aad u xun dilaa ah waana qabowgeeda. tuulada waxaa la sheegay inuu qabow gaadho marka qaarkood -77 barafkan kaala hadlaya qabowgaasaan kaala hadlay waa qabow aad u xun qofka bini'aadamka dilaya. haddana waxaa la sheegay in madaarista iyo iskuuladu ay carruurtu tagaan oo dhigtaan. waa shay la yaab leh laakiin waa wax jira oo xaqiiqa ah. Круто! waxay
waxay soo gaarnay meesha ugu qabow caalamka meesha waxay ku dhowdahay cirifka koonfureed iyo waliba xarunta baaritaanka ee Vostok meesha waxaa la yiraahdaa Doma Argos meesha 2010 waxaa loo qiyaas ama loo diiwaan geliyahay inay tahay meesha ugu qabow caalamka kadib markii xaraaradeedu ay gaadhay -92 yani qabowgeedu markay ay gaadhay -92 hadaba mid kamid ah dadkii culimadii baaritaanka ku jirtay ayaa waxa sheegay inuu meesha dib ugu dambeysay ugu noqonin waxa sheegay inay tahay meesha caalamka ugu qabow deeto markaad neefsatid hawada meeshaasi laga yaabo inay fadhiisiso sanbabkaaga dhuuntaada iyo carabkaaga marka wuxuu leeyahay meesha dib ugu dambeysana uguma noqonayo yani waxaan ognahay -92 hadaan macnaheeda garan waxa weeyaan yacni biyo soo qaaday deed ku saydhiyay cirka biyahaas iyagoon dhulka ku soo noqon barafoobay waa saas oo kale waxaan ognahay -90 -100 in meerayaasha kale caalamku ay leeyihiin darajada saas oo kale aad u qabow marka waxa la sheegaa meesha inay tahay meesha caalamku ugu qabow